siyaasiga Cabdilaahi Axmed Maxamed oo ku magac dheer Dahab kana tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxweynaha Somaliland uu ka qayb gali waayo dufcadii sideedaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Somaliland ku faanto ee Burco kuwad marka labaad waxa jirta dhacdadaas weyn maqleynay wax ugu banade maaha waxay dhacdaa marka maamul uu isku dhaxyaac iyo isbarbaryaac uu jiro arintaas kala dhacda gurigii laga xukumayay Somaliland waa guriga waraaqaha khaldan ay ka soo baxayaan anigu maalintii ugu horeysay warqadii ugu horeysay madaxtooyada ay qortay ee bilaa shaabada bilaa saxiix ahayd ayaan sheegay meeshaas in shaqada taala ay wax ka dhiman yihiin waxa la sheegaa in herdan dhalinyaro uu ka jiro oo ninka mas'uulka iminka jaamacadda joogay iyo ragga ku haray dhalinyarada madaxtooyada inay si xifeeltan isu hayaan waxaan la yaabay madaxweynaha warqadda ka soo baxaysa inta leeg ee oranaysa nalama casuumin adeerdee casuumaadda schedule-ka madaxweynuhu waxa weeye inuu og yahay jaamacadahan xilligooda iyo waqtigooda inay qorshihiisa ku jirto ayay ahayd halkaana maamul xumaa ka muuqata waxa kale oo iyadu jirta jaamacadihii Nugaal iyo Sanaag ba soo hadlayay oo iyagu hadda aan kula talinayaa madaxweynaha u soo qora maalinta qalin jabinaysan sidii ku yimaadaan idin oran dimaan ogeyn maalinta qalin jabinaysan waliba qoraal kaliya kuma filla TV-ga ka sheego waxa tirahdaan maalinta noocaas madaxweynuhu qalin jabinayna haddana ardayda Sanaagnahay ardayda Soolnahay ee Nugaal jaamacadda Nugaal noo kaale madaxweyne ilaa waxaan la midnahay jaamacadahan kale aad tagayso intaana TV-ga ka soo sheega si aan loo oran maanu ogeyn si aan loo oran marka arrintan tilmaanu bay bixinaysaa wax bixinaysaa shaqada madaxtooyada dhexdeeda ka socota nooca ay tahay bixinaysaa isgarabyaacin jirabad bixinaysaa madaxtooyada hoggaankeedu marka ima muuqdo hoggaankii dalka waxan ka badbaadin lahaa ima muuqdo mudana hadalkaaga waxa ku jirtay in dhalinyaro wasaaradka adigu u dhigtay ay ku dhaxirtamayaan madaxtooyada oo arrinta keentay in madaxweynuhu tag waaye war saxaafadeed ka soo baxay arrimahaas oo dhan ayaga dusha ka saartay dhalinyaradaasi maxay yihiin waxa weeye waxay ka muuqatay shaqada waxa la yiri faal caayto af laga ma dhooro waa la soo yahay tan Somaliland waxa ka socdo dhan madaxweyne walba gala halkaana ciladiisu waxay noqotaa in dhalinyaro ay ku takrifalaan waraaqaha halka yaala waxa weeye in agaasimaha madaxtooyadu oo halka tagay sidaan cadeeyay wax dhibo badan oo ku jira dema jirine wax weyn bay u ahayd reer Burco in laga daba hadlo la yiraahdo annagu maanu dirin de way muuqataa in wixii la sheegayay ay soo baxeen marka kullay gacan ku haynta madaxtooyada waxaad muuqataa muusoo la lahaad isagoo 100% hawshiisa isaga wata ama wadan doonaba inaanay muuqan halkaana dhalinyaro isriixaysa iyo habacsanaan ay ka muuqato taas waxay keenaysaa inay arrimihii qarankan ee nooc walba lahayd in lagu badheero oo la dhameeyo ahayd ay ragaad gasho oo ay dhibaato ku timaado sida hadda ka muuqata arrintan caareel la dhameyn la yahay arrimahan wada hadalka ama isu soo dhaweynta dadka oo suurtagal la madaxweynihii oo haldoorkii dalka ay si u wadaba waxaan oo waxay tusayaan inaanay madaxtooyadu shaqadii loogu talagalay aan ahayn ama aanay gacanta ku hayn kale siyaasi Dahab ayaa ka dareen celiyay qayb kamida hadal uu ardaydaasi u jeediyay agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile farinta kale ee la yaab kale meesha ka baxday waxay ahayd waa ogtiin dalkeenu qaran masiibo qaran baa jirtay oo masiibadan qaran dhalinyarada ay ku tahriibayaan waynu la wada dagaalamayeen ninba itaalki intuu Ilaahay gaarsiiyo waalid badan oo ku caruur waayay baa jira waalid badan oo ku xoolo waayay baa jira qaar hadda xidhan baa jira dhibaatooyin badan baa masiibada naga haysta mas'uulkii meesha ka hadlay wuxuu yiri dhalinyaradii isku soo duuduuba ilaa khudbadiisa waa dhageysateen tahriiba oo waliba da'dan 20 ilaa 30 inta jirtaan khatarta aqbala oo dalka shaqo ma taal dalka dalalka jaarka uu shaqada taga oo hadaa weydaan khataraha waaweyn ee mushkiladaha aqbalo ku dhiirada mas'uulkaasina gidaar weyn oo aan islaha qaranku u dhisaya oo khatartaas dhalinyarada ka dhisaya ayuu deedumiyo isna khaladkaas u sameeyay haduu meesha marayay oo aanay madaxtooyadu dirsan oo ama arrimo shakhsi u marayay oo uu meesha ka qayb galo si buuxi kaalinta waa sharaf waana wanaag in lagu hambalyeeyo waahid laakiin isla boodigoodii ahaa madaxtooyadu inay yiraahdaan annagu maanu dirsanba iyaduna waa fariin kale
oo cadaana oo sheegaysa wax madaxtooyada dhexdeeda ka socda madaxtooyada shaqo badan baa u taala shaqada u taala ee ka sugeynaa way ka ballaaran tahay inay waraaqahan khaldaan way ka ballaaran tahay inay invitationada iyo sida wax u socdaan inay khaldaan waxa la rabay isku hayntii dadkan integrationkoodii isdhexgalkoodii waxa ka socda gobolka oo wax aad u khatar ah marka loo eego Somaliland waayo Soomaaliya talaabooyinka diblomaasiyadeed ee hadda qaaday dhammaan inaga inagu fooraraan Cabdilaahi Dahab oo hadalkiisaasi wata waxa uu intaasi raaciyay waa ogtihiin geopoliticalka amaba wadciga siyaasadeed ee geeska Afrika ka jira iminka wuxuu soo xiray oo uu soo dabraya arrimihii Somaliland qura Djibouti oo adeegtaayar nagula jirtay iyaduna iminka way ka baxaysaa oo siyaasadeedii bay isticmaashay Eritrea iyo Ethiopia arrinka ay hogaaminayaan ee Soomaaliya loogu yeeray iminkana Djibouti la doonayay in laga saaro xariga waxa meesha ku harayo kaliya Somaliland bay noqotay Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa